safaaradda Mareykanka ah ee Soomaaliya ayaa mar kale maanta fariin culus oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka dalka u dirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo shanta madaxweyne goboleed ee dalka. qoraal kooban oo ay safaaraddu soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayay ugu baaqday madaxda Soomaaliya inay xalliyaan arrimaha taagan si ay taasi u suurtageliso in dalka doorasho ay ka dhacdo. waxayna diiday doorasho hal dhinac ah iyo doorashooyin kale oo isbarbar socda. waxaan ugu baaqaynaa Farmaajo, Saciid Dani Axmed Madoobe, Qorqor, Cali Guudlaawe iyo sidoo kale Laftigreen in ay xalliyaan arrimaha taagan si ay taasi u suurtageliso inay dalka ka dhacdo doorasho nabdoon oo shacabka Soomaaliyeed ay u qalmaan maya doorasho hal dhinac ah ama doorashooyin isbarbar socda ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda Mareykanku ee soo saartay. qoraalka Mareykanka ayaa yimid iyada oo sidoo kale beesha caalamku ay maanta soo saartay qoraal ay ku diidan tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho hal dhinac ah iyo kuwa isbarbar socda. saaxiibadu waxay ku baaqayaan hanaan doorasho oo mid ah oo lagu heshiiyay iyadoo aanay jiri doonin doorashooyin kale oo isbarbar socda ama aan loo dhamayn oo loo qabto si nabad ah iyadoo la ilaalinayo saaxada siyaasadda iyo xurriyadda warbaahinta lana damaanad qaadayo qoondada haweenka ee 30% ahi ayna sidoo kale soo baxayso natiijo lagu kalsoonaan karo loona wada dhan yahay oo u adeegaysa danta qaran ayaa lagu yiri qoraalka. beesha caalamka ayaa sidoo kale sheegtay in ay taageerayso inay shir jaraa'id isugu yimaadaan dhinacyada isku haya siyaasadda dalka. saaxiibada beesha caalamku waxay si buuxda u taageerayaan soo jeedinta ah in si degdeg ah loo qabto kulan dhexmara madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada xubnaha ka ah si loo xalliyo arrimaha hirgelinta doorashada ee harsan si horay loogu socdo qabashada doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo loo wada dhan yahay ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saartay beesha caalamku. qoraalada iyo talooyinka isdaba jooga ah ee ka imaanaya beesha caalamka ee la xiriira muranka doorashooyinka dalka ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli uu meel xasaasi ah marayo khilaafka sii xoogaysanaya ee ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka taas oo ay isku hayaan madaxda dawladda Soomaaliya, musharaxiinta iyo qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleed.